بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وناكسن أخيارته هودي قد داونيساي كسور وهذا وراركي Soomaaliya kuwoodii ugu dambeeyay wadahadana kale ka daawataan page-kan waa 15 bisha afraad 2026 muqaal wareedkan inta aan ku soo gudbin hadii ay tahay markii ugu horeysay oo soo baqato page-kan fadlan muuqaalka leega saar oo share garay waxaan ka codsanayaa dadka daawanaya YouTube-ka inay muuqaalka leega saaraan waxaad arkaysaa muuqaallo dad badan ay daawadeen ilaa 100 kor u dhaafaya haddana hal qof uu leeg saarin xaasid naftiisa ayuu xaasid ku yahay saaxiib fadlan muuqaalka leega saar haddaad iga daawanayso page-ka iyo haddaad YouTube-ka iga daawaysana intaasi waa iska codsi saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegaynaa macluumaad ku saabsan xog duqaymo culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo iyo laba deegaan oo kale intaan ku soo gudbin fadal muuqaalka leega saar oo share garay oo u geey cid u baahan ha iska fiirsan muuqaalka xaasid ha noqonin xaasid naftiisu xaasid ku yahay aynu ku bilownaa saaxiibayaal wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa faahfaahin buuxda ka bixisay duqaymo ciidanka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen duleedka magaalada Baydhabo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada dalka haddaba maxay kala yihiin deegaanadaas hawlgalkan ayaa laga fulayay deegaamada ay ka mid yihiin Fardo ee gobolka Hiiraan Ugunji oo ka tirsan Shabeellada Dhexe Daynuunay oo ka tirsan gobolka Bay iyo Qumbi oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya hawlgalkan intii lagu guda jiray ayaa waxa dhacay 6 duqaymood oo kala duwan oo si gaar ah loogu bartilmaameeyay maleeshiyaadka khawaarijta shabaab oo midooyinkii dambe halkaas ka waday dhaqdhaqaaq ay sii kordhinayeen sidoo kale warbixinta ayaa waxa lagu xusay in goobaha la beegsaday ay ahaayeen xarumo gabaad u ahaa kooxdaas oo adeegsan jireen ururinta iyo abaabulka weerarada waa sidoo warka loo dhigay wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay fulinta duqayntan ay saameyn ku yeelatay markii horena kormeer iyo dabagal lagu sameeyay si loo xaqiijiyo xogta dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka ku sugan deegaanadaas la duqeeyay waa sida warka loo dhigay duqaymahan ayaa la beegsaday baa la yiri waxayna sababeen 60 duqaymood dhimasho ugu yaraan 54 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta shabaab ayaa lagu yiri halka tiro kalena lagu dhaawacay waa si warbixinta ay u dhigeen saaxiibayaal sidoo kale waxaa lagu burburiyay kayd iyo sahay ay kooxdu halkaasi ku lahaayeen waa si warka loo dhigay saaxiibayaal agab iyo sahay ay kooxdu u adeegsan jireen taasi oo si weyn loo weeqay awoodda dhinaca sahayda iyo isku socodka iyo abaabulka weerarada ay kooxdu qaadi jireen waa sida warbixinta lagu xusay saaxiibayaal waxyaalaha dambe ka soo cusbaalad muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan muuqaalka share garay oo geeyid oo baa nabaday